inaanu deegaanadayada uga saarsanno Itoobiyaanka halkan maadaama ay tahay casuumadii Puntland kacdoonka u weyn iyo shaqada u badan waxaanu garanay inay garow ka bilaabato gudoomiyaasha gobolada iyo gudoomiyaasha degmada ee deegaanada kalena waa la marayaayo gobol walba shaqada ka socota waxaanu niri intii aan dhinac mari lahaydeen taliska qaybta gudoomiyaha gobolka iyo degmada kulligood mara kacdoonkani waxa uu ka bilowday si hoose dhalinyaro ka bilowday maanta laakiin dhalinyaro ma ahan ee waxa ku midaysan shacabka Puntland oo dhan waxaan u tagnay gudoomiyaasha xaafadaha qaybtood nabadoonadii shaqada u waaweyn gobolka iyo cid walba oo ay arrinkan xusaysay wixii aanu u soconay oo nagubayay wax kale ma ahay maadaama aan dhalinyaradii deegaanka nahay waxay ahayd shan arimood oo aan halkan ku soo qoranay oo aanu aragnay in weerar ba'an ay ku yihiin Itoobiyaanka deegaanadooda soo buuxdhaafay shanta arimood qodobka ugu horeeya wuxuu yahay diinta islaamka dadka inoo imaanaya kulligood ma aha dad islaam ah waxa u badan dadka aan muslim ahayn oo kristana qaybtoodna halkan calaamadii kristanku uga taal qaybta kalena ay halkan u suran tahay dadkaasi waxa ay galayaan goobihii cibaadada masaajidada ugu horeeyeen iyagoo aan u galeyn inay ku cibaadaystaan ee u galaya kaliya inay ku dhaqdhaqdaan xitaa deerarkii nadiifka ahaa bay isku dayayaan inay ku qubaystaan iyagoo suuliga u bannaan yahay wadaadadii inay noo yimaadaan waa ahayd laakiin waxoogaa bay naga soo dibdhaceen waa sugaynaa laakiin haddii rabbeedno waxa aanu la kulannay gudoomiyaasha xaafadda qaybtood waxa ay noo sheegeen waxyaalo annaga aanu ogeyn sida saxda waxaan ognahay maantay oo dadka yani xog ogaalka ay deegaanku noo sheegeen garowe oo caasimadii Puntland dhul muslimana ah in maanta laga helayo goobo lagu kala gadanayo gabdhihii Itoobiyaanka dadkii noo sheegay dad waaweyn oo macquul weeye deegaanka waana joogaan wali dad islaam aanu nahay waxa waajib naga saaran yahay wix alle wixii diinteena gaf ku ah inaynu iska qabanno diiniyan nabigu waana faray sallallahu alayhi wasallam ayadaha quraanka iyo xadiiskana ku soo oran qodobka labaad ee aan u socono waxa weeye caafimaadka dadka inoo imaanaya kulligood ma maraan check-in caafimaad waxaan ognahay Itoobiya inay tahay saddexda wadan ee ugu sareeya ee cudurrada lagu kala qaado galmada iyo waxyaalaha la midka ah HIV/AIDS waxay uga jidhaasaan qiyaasaya waddanka labaad kulligood way inoo yimaadaan baaritaan ma maraan waxay ku dhex nool yihiin bulshadayadii kale annagoo ogde waxaasoo dhan ay ku dhex nool yihiin inay si fudud u faafin karaan cudurka ay wadaan waliba annagoo og Itoobiya oo dawlad intaasoo sano jirtay inay haddana awoodi weydo inay xakamayso cudurkaas innaga oo Soomaali ah dadka iyagu yahay dad yacni aan dawladnimada systemkii ballaarnaa Itoobiya looga helaya xagga looga heleen caafimaadku qiimo leeyahay oo yani iib yahay wax walba iib yihiin cudurkaas sida fudud ee deegaanadayada ku soo gaaraya inuu halis ba'an inoo yahay baan dareen waxa aanu kala dareennay amnigayagii aanu haysanay muddada badan ee 26 sano ah in caqabad ku yihiin dadka inoo yimi ee Itoobiyaanka ahi sida saxda ah waxa ay geystaan dambiyada fudud iyo dambiyada culus labadaba waxaan ognahay dambiyada fudud oo telefoon furashada ah guryaha u dhicitaankooda ah Itoobiyaan badan oo qayb ka yihiin inay oobiyada yaalaan waxaan kaloo ognahay inay yihiin dad sabool ah oo looga faa'iideysan karo arrimaha argixisada deegaanada tani de waxa caan ku nahay waa isku duubni waxaan caan ku nahay waxa weeye qof walba dhinaca uu ka arko amniga inuu dadku u soo gudbiyo waan ku ixtiraamayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo markii u horeysay aan isaga u nimi isaguna ballantan quruxda badan inoo qabtay waxyaalaha kale ee aanu ku aragnay waxa kamid ah waxa ay suuqi ka saareen dadkii masaakiinta ahaa ee jilicsanaa ee ka shaqaysan jiray baalashka garab rartada ahaayo bagaashka raritaankooda iyo waxyaalaha la midka ka shaqaysan jiray wixii oo dhan suuqi ka saareen dadkaas waa dad Ilaahay nagu imtixaamayo guryahoodii bay gaajo u joogaan inta wax laga weydiinayaan waa inta halkan joogta iyo inta kale wax garadka ee guryahooda jiifay barwaaqada haysta qodobka ugu dambeeya ee aanu rabno inaanu ka hadalno waxa weeye dhalinyaradu markii ay isku timi iyo dadka waayeelka ah waxaanu qiimeynay dad inay inaga jiraan dhulka Itoobiya waxaan isla garanay dadka dhulka Itoobiya jira inay dalka ku joogaan sharci aysan ku joogin baryo iyo Soomaaliyeed midna annagoo taa ka duulayna waxaanu xaq u leenahay haddaan dhalinyaradii gobolka nahay ama dhalinyarada Puntland nahay qofka Itoobiyaanka ah ee deegaankiisa jooga waxa uu xaq u leeyahay inuu helo in aan kan ku helo qofka Itoobiyaanka ay xaq u leeyahay deegaankiisa inuu aniga ilaashado haddaan sharci darro dalka ku galo waxaan xaq u leeyahay ama deegaankayga inaan ka ilaashado qofka sharci darrada ah ee deegaankayga aniga jooga waxaanu qiimeynay dadka halka inaga jira inay yihiin dad sharci waddanka ku jooga dad cashuur madaxooda taal dad shaqooyinka xitaa bulshada ee Itoobiyaanka ay qaban karaan inay qabtaan loo ogolayn
waxaanu garanay guddoomiyaal annagoo ah guddi kacdoon oo dhinac walba ka kooban inaanu dhinac marin madaxdii gobolka kii degmada iyo kii taliska qaybta iyo dadkii mas'uulka deegaankan ka ah aanu noqon dad Facebook ku qaaqlayaal ah amba system kale oo kicin bulsho ah abaabulayo dhinac kala mara waxaan u soo bareernay inaan hortiina imaano idin sheegno waxa aan anaga calooshayada ku jira waxa ay yihiin anagoo og culayska ay anaga nagu hayaan mid ka badan inay dadkuna ka ogtihiin mudanayaal hawshayadu intaas ay ahayd waan ku ixtiraameynaa shaqada quruxda badan ay haysaan waxaan rabnaa inaan idin dhahno amni ahaan xil walba daan dhalinyaranahay diyaar baan idin nahay waan mahadsantihiin